martida sharafta leh dhammaantood oo mid walba ku salaamaya heerkiisa maamuus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marweyn iyo mudanayaal salaan kadib maanta waxaa inoo sharaf ah oo inoo nasiib wanaaga in aynu goobjoog u nahay daahfurka suuqa dhaqaalaha horumarinta dhaqaalaha ee Berber waa tallaabo horumarineed oo la xidhiidha kuwii ka horreeyey sida casriyeynta dekedda Berbera garoonka diyaaradaha iyo jidka Berbera Wajaalo ee loo yaqaano Berbera Corridor kaabayaasha horumarinta dhaqaale oo ay ku baxday $100 milyan waxaa dhammaantood hirgeliyey dowladda Imaaraadka Carabta iyo shirkadda oo ay hormood u tahay shirkadda DP World aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa dowladda Imaaraadka Carabta iyo shacbigooda waxay noo muujiyeen walaalnimo iyo waxtar haddaynu nahay Somaliland abaal weyn ayaynu u haynaa dowladda Imaaraadka waarinu abaal gudi doonaa insha Allah dhismayaasha iyo kaabayaasha dhaqaale casriyeynta dekeddu waxa ku lifaaqan aqoon maamul iyo mid farsamo oo heer caalami ah oo ay dhaxli doonaan dhammaan dhalinyarada Somaliland mustaqbalka dhow iyadoo haddaba ay muuqdaan ifafaaraha aqooneed iyo maamul ee ka socda howlaha dekedda iyo kaabayaasha dhaqaalaha mashaariicda laga hirgeliyey Berbera waxay ka dhigayaan dekedda Berbera mid awood u leh inay noqoto deked la tartanta dekedaha caalamiga ah deked u adeegta gobolkan aynu degannahay iyo dhammaan dalalka aan dekeda lahayn ee qaaradda Afrika waa tallaabo taariikhi ah oo ay dowladdu u qaaday dhinaca hirgelinta qorshihii horumarinta qaranka ee loo yaqaano NDP 1 NDP 2 iyo NDP 3 oo hadda la bilaabi doono fulintiisa daahfurku suuqani wuxuu abuurayaa fursad ganacsi shaqo abuur kororsi aqoon farsamo iyo mid maamulba iyo isdhexgalka iyo wax wada qabsiga caalamka oo dhan maalgelinta mashaariicdan kaabayaasha dhaqaale aqoontooda maamul iyo farsamo ee ku lifaaqan waxay gaarsiinayaan dekedda Berbera inay noqoto deked caalami ah oo adduunka oo dhan la leh baac mushtari iyo isku xidhnaan shaqo waxaan soo dhaweynayaa cid kasta oo maalgashatay dekedda Berbera iyo suuqa dhaqaalaha ee Berbera iyo dalka Somaliland guud ahaanba waxa xaqiiqo ah in reer Somaliland ay dhaqan soo jireen oo 100 sanadood ka hor jiray ilaa haddana socda oo ganacsi ay leeyihiin oo ay adduunka la xiriiri jireen 100 sano ka hor hadday bariga tahay iyo hadday galbeedka tahayba dadweynaha reer Somaliland ku dhaqani waxay 100 sano ka hor ugu baxay baac mushtarkooda caalamka oo dhan ay ku wareegayeen gaar ahaan Soomaalida dhexdeeda magaca la yiraahdo kabare idoori oo micnaheedu Ingiriisi ku noqonayo partner of trade ganacsadihii wax bedelanayo waa intii aan lacagta adduunka la samaynin ayuu magacaasi baxay oo dadka Somaliland gaar ahaan Berbera iyo Sayra iyo Xiis iyo Maydka baac mushtaraya ay adduunka oo dhan wixii af Soomaali ku hadlaa la baac mushtaraya jireen oo kula baxeen weedhaas dowladdu waxay geed dheer iyo geed gaabanba u fuushaa sidii ay u xoojin lahayd jawiga fiican ee ganacsiga ee ka hana qaaday dhammaan Somaliland sidii uu soo xoogaysan lahaa tan waxay caalamka u muujinaysaa kaabayaasha casriga ah iyo adeegga hufan ee dekedda Berbera
iyo dadka reer Somaliland oo leh furfurnaan iyo xirfad aqooneed ganacsi in ay tahay meel qof waliba la baaxmushtareyn karo hantidiisa ku aamini karo kana faa'iideysan karo waxna la wadaagi karo Somaliland ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa shacbiga Somaliland dhammaantii oo suurta geliyay inuu dalkeenu horumar ka gaadho waa awoodda shacbiga iyo rabitaanka inuu dalkeenu hore u marino dhammaanteen waanu sii xoojinaynaa waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa nabadda horumarka iyo quruxdaas waxay ku timid dhiigga geesiyaasha qaranka ee maalin walba naftooda u horaya si aynu u gaadho horumarka oo inaga mudan mahadnaq iyo xusuus gaar ah aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh